بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. داود يالسود وهذا ما أنت وحان رمنا إن أن دور قلب كإيراهدو برنامج كسابسن وحيابها نولش يعني آد كسامنت وقول له هو يكمدهين دجالك آدنها ويس دجالان ويس دلان ويس دولميان balse suurtagal ma tahay in arrintaas dagaalka laga gudbo oo aysan isdagaalin. Soomaalida gaar ahaan waxay ka mid yihiin dadyowga dunida ugu dagaal badan, isdilo, isdhibaateeyo. Markii hore waxay isku dili jireen, isku dhibaateyn jireen baad iyo biyo iyo wixii la halmaala iyo xil. Maanta se waxay maraysaa in la isku dagaalo diin islaam dhexdiis in la isku dagaalo oo la isku baabi'iyo. Suurtagal ma tahay in dagaal laga maarmo oo aan marna la isdagaalin. Nolosha kama dhamaado dagaal iyo dhibaato iyo imtixaan waayo sunanti Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray dunida uu abuuray waxa kamid ah aadanaha in maxaan ku yiraahdaa isdilaan ay isdhibaateeyaan nolosha ay kamid tahay sunanta nolosha ay kamid tahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay walula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin. Hadaysan dadka intiisa kale qaar kale lagu celin lahayn dunidu way fasaadi lahayd waxna ma hagaagi lahayn. laakiin Ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa ayaa waxay keentay in qaarna qaarka kale lagu celiyo. Haddii aysan suurtagal ahayn dagaal maxaa muhiim ah maxay tahay qaabkee loola macaamili karaya kow waxyaabaha muhiimka ah waxaa kamid ah kow inaad garato yaad la dagaalaysaa adowgaada yaa waaye yaa adow ku ah yaa mudan inaad la dagaasho oo disho oo maxaan ku yiraahdaa dhibaatooyin u geysato. sidoo kaleeto goorta aad dagaalamaysan inaad adiga go'aansan karaysid. haddii lagu go'aamiyo goorta aad dagaalamaysid goorta aad wax dilaysid goorta aad maxaan ku yiraahdaa dhibaato galaysid waxa waaye qofka guuleysanayo waxa noqonayaa qofka go'aanka gaaray ama keenay goorta la dagaalamayo qofka dejay ayaa guusha raacaysa. waxaa kale oo muhiim ah qaabka aad u dagaalamayso iyo hubka aad ku dagaalamaysan sidoo kaleeto inaad adiga lahaatid ama aad gacanta ku haysid. dunida maanta waxay maraysaa heer ay gaareen يعني عدوغين أسيغا أيا إسوغو فيلان إنو إسدباتيو معنى عدوغيني قتل النفس بنفسه يعني عدوغ نفتيس إن لسكو ديلو أو أسيغ إسديلو أو إسدباتيو غورمي كو قدن بيسي خير قلبات أو إسدقالايو أو دباتي سوغيسانايو حليدي هوري قرون الوسطى يعني حليغا لوغو جيري وإسدقالي جيرين وإسدباتين جيرين بابا إسكاديغي جيرين ويكسو قدبين وحي فهمين إن أيغو دحضو الدقال كودا إسان قول كغارينين dhibaato kali ay ka dhaxalayaan iyo qax kali ay ka dhaxalayaan taas oo markii dambe keentay inay ku soo duulaan dunida kale gaar ahaan dunida muslimka inay soo weeraraan oo ay gumeysi iyo dhibaatooyin badan u geystaan. way ku soo duuleen Carabta iyo Afrika inteeda badan waxay galeen gumeysi ay hoos galeen. gumeysiga kadib dhibaatooyin badan dadkii la gumeysanayay dulmiga lagu haayay ay Soomaalidu qayb ka tahay waxay garteen dhibka adowga uu ku haayay in aysan loo dulqaadan karin waxayna in kamid ah Soomaalida isku dayeen ama dadyowgii la gumeysanayay guud ahaan Afrika iyo Carabta kamid ah isku dayeen inay adowgaas iska dulqaadaan ay dagaalamaan ay isxureeyaan. dadkii mustacmiriinta ahaa ama reer galbeedka ahaa waxay garteen in xoog wax lagu maquunin karin ama dadkan aan xoog iyo dagaal aan lagu wadi kareenin waayo markasta ay la dagaalamaan dhulkooda ay kula dagaalami jireen waa la dili jiray waa la qarxin jiray dhibaatooyin loo geysan jiray. waxay isku dayeen inay laabtaan dalalkooda u laabtaan dalalka ay gumeysan jireen madax banaani ay siiyaan balse sheekadu halkaas kuma aysan dhamaanin. hadafka ku xigay wuxuu noqday dadkaas la gumeysanayay ee mustacmiriinta ahaa in dhexdooda la isku diro dagaalkii shalay lagu haayay mas'uuliyadiisa ayaga dhexdooda lagu wareejiyo oo ayagu isdagaalaan oo isdhibaateeyaan dilkii shalay la dilayay oo qofka reer galbeedka ama meel kale ka imaaday ama adowga ahaa hooshuu qabanay dhexdooda ay fuliyaan oo ayagu dhexdooda isdhameeyaan. taas oo in badan aan maanta uga jeedno dunida muslimka ah oo anaga aan qayb ka nahay qaarka kale ay dilayaan anaga is dulminayno waxaan garan weynay yaa cadow ah yaa cadow inoo ah goormeen dagaalana yaan la dagaalana anagoo intaas kala garan maxaan ku yiraahdaa guul inaan gaarno way adag tahay. marba haddii sidaas ay tahay dagaalna aan laga maarmi kareynin dhibaatadaasna aan ku jirno maxay tahay marka xalku muxuu inoo noqon karaa. xalku waxa kamid ah fulinta dhowr qaacido asaasi ah nolosha guud ahaan asaasi ka ah. yani ayaga waxay fahmeen in dhexdooda dagaal aysan xal ku keenaynin way midoobeen qaarna waxay sameysteen midowga Yurub ay sameysteen qaarna waxay sameysteen yani maxaan ku yiraahdaa isu taga Mareykanka ay sameysteen gobolada konton iyo dhowrka ah sidaas ay ku midoobeen ismana dagaalan dhibaatana isuma geystaan. ka dawlad ahaan sidoo kaleeto maxaan arki weynay
ruushka iyo maraykanka oo isdagaalay ama maxaan ku yidhahdaa nuclear isla dhacay ama dhibaatooyin kale isu geystay way adag tahay in la arko. sidoo kaleet wadankan yar oo yani North Korea, waqooyiga Korea la leeyahay yani hub uu haystaa, nuclear lagu tuhmayaa, intaas uu haystaa, intaas maraykanka warkiisu jidaya. way loo weerari laayahay? waxaa loo weerari laayahay laba mabda oo isku mid ah inay cadow isu noqdaan oo ay dagaalaan ay ka cararayaan, taas ay diidan yihiin. aragna dirsigaas ay tahay inaan fahno. waxaa ka mid ah marka qaabka aan dirsigaas u fahmi karno kow midnimo, mar allaal inaan midowno oo yani awood yani ka wadan ahaan inaan u midowno, kadibna ummadaha kale haddaan la midoobi karno, wadamada kale oo muslimiinta ahna aan la midoobi karno inaan la midowno. midnimo la'aan waxba inooma suurtagalayo. waxay yidhaahdaan united we stand, divided we fall. markaan midaysannahay waa istaagaynaa, awoodaan yeelanaynaa. markaan qaybsannahayna waa dhacaynaa oo awood ma lihin. taas maxaan ku yidhahdaa qur-aankan way ku caddahay, wa'tasimuu bihablillahi jamiican walaa tatafarraquu. sidoo kaleeto yani inaan garano yaa cadow inoo ah. yani walaalkaagi ma cadow u aragtaa ama waxaa cadow u aragtaa cadowga rasmiga ah ee maxaan ku yidhaahdaa yani mabda ahaan kaaga soo horjeedo ama adiga rabo baabi'intaada noloshiisa dhan ay tahay, kaasaa cadow u aragtaa. dhibaato weyn waaye in aad garan weyso cadowgaadi. qofka walaalkiisa la dagaalamayo marna guul ma gaarayo. caalam alislaami 1400 dhowr sano yani dhexdiisii in badan way soo dagaali jireen, dowlada isu dagaali jireen, wadan dhexdiisa is dagaali jiray, haraka kale guul ka gaartay, ama wadan muslim wadan kale muslim guul ka gaaray oo maquuniyay oo hadaf iyo ujeedku lahaa ka gaaray, heli maysid, arki maysid. si kasta aad taariikhda u baarto ma dhicayso. maadaama ay sidaas tahay, waa muhiim inaan ku laabano qeexida yaa cadow inoo ah. waa muhiim yani. qodobka saddexaad ee ugu dambeeya daawada inaan kula wadaago wuxuu yahay kow in maxaan ku yidhahdaa anaga aan wanaag isfarno, xumahana aan iska reebno. reer bani Israa'iil ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu u lacanaday waxay ahaayeen kuwa aan khayrka isfarin, yani maxaan ku yidhahdaa xumahana aan iska celinin. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. maadaama ay sidaas tahay oo xumaha ay sameeyaan aysan iska celin jirin, sidaasaa loo lacanaday. haddii ka ummad ahaan, ka Soomaali ahaan, ka muslim ahaan anagan aan xumaha iska celin weyno, wanaagana aan isfari weyno, yani siyaabo kala duwan la noo cadaabi karaa. dhibaatooyin dhexdeena la isku yani dhibaatooyin isu geysanayna, yani dhibaatooyinka wadanka ka jira, dowladnimo la'aanta ah, nabad la'aanta ah, yani gaajada ah, abaaraha ah, waxaan dhan sababta ugu weyn keentay waxaa waaye wanaagii oo in la isfara yar tahay. kaliya wanaaga ma ahan in maxaan ku yidhahdaa diinta qaybteeda cibaadaadka ah, masaajidka in la tago, salaad la dugto, la soomo, la salaado, kaliya intaas ma ahan. waxaa ka mid ah in dulmiga dhexdeena aan joojino, aan isfarno, aan iska ilaalino, in shaqo iyo akhlaaq wanaagsan iyo mucaamalaad wanaagsan inaan la imaano, in maxaan ku yidhahdaa wax kastoo horumar ah, cilmi ay shaqo ah dhexdeena la isfaro, la isku booriyo. hadday tahay masaajidada, hadday tahay jaamicaadka, iyo hadday tahay madaarista, dhammaantood waa mas'uuliyadna wada saaran. markaad arkaysid horumar iyo technology iyo waxyaabo badan oo dunida kale ay gaarayso, ayaga waxay ku mashquulsan yihiin wax ayaga faa'iido u leh. kuma mashquulsano inay isdhibaateeyaan, kuma mashquulsano inay maxaan ku yidhahdaa dhibaatooyin isu jeestaan, halka anaga aan ku mashquulsannahay inaan isla goyno oo dhibaato isu geysano. marka wanaag in la isfaro iyo xumahana la isku reebo, yani macnaheedu aad u ballaaran yahay. si kastaba daawada, dhibaato kasta nagu dhacdo, wax kasta hana gaaro, halka meel kasta hana la gaare, kama quursanayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo nagu leh suuratu Yuusuf, walaa tayasu min rawxillahi innahu laa yayasu min rawxillahi illa alqawmul kaafiruun. naxariista rabbi ha ka quursanina, kaliya waxaa naxariista rabbi ka quursado kuwa ilaahay ku kufriyay oo u shariig yeelay, kaliya ka quursado. marka maadaama ay sidaas tahay, waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala rajadeena ku xiraynaa in dhexdeena qulubteena mideeyo, isu keeno, inaga dhigo ummad isjecel, inaga dhigo ummad garanaysa cadowgeeda, inaga dhigo ummad garanaysa yani goorta ay dagaalamayso iyo cidda ay la dagaalamayso iyo hubka ay ku dagaalamayso, waxaas dhan garanayaan. in ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga dhigaan rabbi inooga barinaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.